agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo warbaahinta maalinlaha la wadaagay warbaahinta xaaladaha xanuunka COVID-19 ayaa shaaciyay 8 xaaladood iyo hal qof oo dhimasho agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa kale oo uu ka warbixiyay shaybaadhadii ay sameeyeen 24 saacadood ee la soo dhaafay dhanka kale waxa uu fariin la wadaagay shacabweynaha reer Soomaaliland waxaanu sheegay inay qaataan fariimaha ay u soo jeedinayaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maanta oo ay May 19 aan la wadaaga bulshadeena in 8 xaaladood ama 8 case ama 8 qof ay ku soo biireen numberkii hore ee xanuunka qabay 24 saacadood u dambeeyay 8 qof ee ku soo biiray dhammaan 8 qofba waa rag waxaanay ka kala yimaadeen magaalooyinka Berbera oo 5 qof ah Burco oo 2 qof ah iyo magaalada Hargeysa oo 1 qof ah dadku waxay u dhaxeeyaan sidii hore aynu sheegi jirnay da'da 20 ilaa 30 jir oo 1 qof ah waxa kale oo iyaduna ku jirta 30 ilaa 40 jir oo 2 qof ah 40 ilaa 50 jir oo 4 qof ah 60 ilaa 70 jir kuma jiro 70 ilaa 80 kuma jiro 80 jir inta ka weynina waa 1 qof sidaas ayay 8 qof u qaybsan yihiin waxa geeriyooday oo ku biiray Allah u naxariistay tiradii hore dhimashada 1 qof halka qof oo da'diisu ahayd 80 jir marka waxa ay wadarta guud ee dadka xanuunkan laga helay ay noqonaysaa Somaliland 129 qof 24 saacadood dambeeyay saan idin sheegay waa 8 qof dadka xanuunka ilaa imika shaybaadh ahaan uga bogsaday waa negative amba negative ka noqday waa 8 qof ee shaybaadh ahaan la cadeeyay inay negative yihiin waa 8 qof laakiin 24 saacadood ee u dambeeyay waxa ka soo baxay isbitaalka Daryeel 3 qof oo kale oo laga soo discharge gareeyay oo ladnaaday laakiin shaybaadhkoodu wali maqan yahay laakiin ka ladnaaday xanuunkii oo iyagoo xanuunsanaya la geeyay imikana ladan oo wali home isolation sii galaya laakiin jawaabtoodu ay maanta iyo biri soo bixi doonto iyagana aan filayo inay negative tahay markaan eegnay sida ay xaaladoodu tahay tirada guud ee shaybaadhka loo sameeyay waxa weeyaan 701 qof iyada oo 24 saacadood u dambeeyay dadka la baadhay ee 8 qof ay ka soo baxeen ay ahayd 35 qof waa in dadku qaataan wacyigelinta waa in bulshadu u midowdo sidii xanuunkan looga hortagi lahaa dariiqaas kaliya ayaynu kaga guuleysan karaynaa waxa aanan dadka u sheegayaa in la isticmaalo ciddii helaysa afsaarka ama afxidhka ama maaskiska kala duwan marka ay u baxayaan meelaha suuqyada iyo meelaha la isugu imanayo